الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض المنزل ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. العاقل كل العاقل من عرف الحقيقة، من استعد للموت ولما بعد الموت، من عرف مقصد حياته. العاقل كل العاقل. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. qofka caaqilka qofka dhaqaalaha badanna maaha, qofka adduunyada urursada maaha. addunyaa daaru man laa daara lahu buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. adduunyadu waxay daar u tahay ninkaan aakhira daar ku lahayn. wamaalu man laa maala lahu, dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkaan dhaqaalo aakhira ku lahayn. lahaa yajmacu man laa caqla lahu, adduunyada waxaa ururiya buu nebigu yihi ninaan caqli lahayn. caaqilku waa kee? waa ninka garta wixii adduunya kii keenay, waa ninka garta kii keenay iyo wuxuu u keenay iyo meesha loo socdo. man akyasu nnaasi wa akramu nnaasi ya rasuula allah. masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu nin soo galay, nin acraabi oo reer miya. markaasuu su-aasha nebiga u jeediyey, yaa rasuul allah, dadka ninkeebaa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi. umaba dheeraane wuxuu yidhi akharuhum lilmowti dikraa wa ashadduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum lakyaas dahabuu bisharafi addunya wa karaamati alaakhira. dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geerida iyo aakhira xasuusanaya, maalinba maalinta ka dambaysana saayida aakhira ziyaadsanaya. kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi, sharaftii adduunyada iyo karaamadii aakhirana kuwaasaa la tegay buu yidhi. ya abaa dar jadid الsafiinata faina albaxra camiiq waakthar الzaada faina safara طawiil buu nebigu ku yidhi abu dar. ya abaa dar, ya abaa dar buu ku yidhi, doonida jadiidso baddu way ku dheerto way ku liqiye, sahaydana ziyaadso safarku uu dheer yahay. daacadda iyo cibaadada iyo diinta intaad haysato weliga ha ku qancin, ama adduunyada iyo kasbiga iyo arsaaqadda inta ilaahay ku siiya ku qanca. taasaa mustaxab oo la jideeyey. wa abaa dar azhadu ummatii wa acbaduhaa buu nebigu yidhi, waa ninka ummadayda ugu zaahidsan ee ugu cibaado badan. man araada an yandura ilaa ciisa bni maryam falyandur ilaa abi dar buu nebigu yidhi. ninkii doonaya nebi ciise inuu arko abaadar alkhifaari ha arka buu yidhi, zuhdigiisa iyo siduu adduunyada uga zaahiday. kaasaa nebigu dardaaranka soo maray uu leeyahay, abaadar oo doonida jadiidso, iimaanka jadiidso, qalbigaaga adduunyada kala dagaalam, qalbigaaga cadamada maxabada lacagta kala dagaalam. baddu way ku liqi haddii kale, shahawaad iyo kaflad baa adduunyada lagu sheedhiyo way ku liqi haddii kale. wa akthar izaada fa ina safara tawiil, sahaydana ziyaadso safarku uu dheer yahay buu ka yidhi abu dar, oo safarku uu dheer yahay. sayidina abaa hurayra radia allahu canhu ayaa sankaraadkii ooyey. markaasaa lagu yidhi abaa hurayra maxaa loo ooyeysaa? saaxibu rasuulillaahi baa tahee. wuxuu yidhi abkii liqilati zaadi wa bucda safarii, sahayda aan wata yarideeda iyo safarkay sugaya islahayn buu yidhi. hada abu dar. cumar radia allahu canhu waa ninkii nebigu yidhi low kaana bacdii nabiyan lakaana cumar, haddii aniga nebi dabada iman lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi. jannadaan galay buu nebigu yidhi, habeenkii micraajka qasri jannada ku yaalla ayaan arkay, gabadh xawraa ayaa igaga soo baxday buu rasuulku yidhi. markaasaan ku yidhi liman hada alqasri, gurigan ayaa loo diyaariyey qasriga intan leeg. waxay tihi nin carab ka dhashaa loo diyaariyey, anigaaba carabe ma cid kalaa? haa nin qurayshaa loo diyaariyey, quraysh ka dhashay, anigaaba qurayshe ma cid kalaa? haa nin ummadda nebi maxamedaa loo diyaariyey, anigaaba muxamede ma cid kalaa? haa bay tiri cumar bnu khadaab baa qasrigan loo diyaariyey. hada cumar. walaakiin muxuu yidhi masaajidkii nebiga khudbadu ka jeediyey, wuxuu yidhi low naadaa min asamaa kullukum daakhiluuna aljannata ilaa rajulan waaxidan lakhiftu an akuuna huwa. haddii samada laga dhawaaqo la yidhaha bini aadanka o dhan jannay galayaan, hal nin keliya naar ka galaaya, ninkaas inay ani tahan u malayn buu odhan jiray. qanaaca fi diin lama ogolo walaalkayga muslimkow. diinta intaad haysato ha ku qancin, adduunyada intaad haysato ku qanac, taasaa mustaxab ah. weynayn aakhirada la weynayd, asbaabtii ashyaadu lama weynayda camalka saalix ee iimaanka la weynaa.
makhluuqu lama weynayna ilaaha khaaliqa amarkiisaa la weynaa. man lam yardaa biqadaa'i walam yasbir ilbalaa'i walam yashkur calaa nicmaa'i falyakhruj min bayni asamaa'i wa ardi falyaltamis rabban siwaa'i baa ilahay yidhi xadiis alqudsi. man lam yardaa biqadaa'i, qadaha wixii aan ku xakuma addoonka raalli aanan ku ahayn, nicmadaydana aan igu shukriyaynin, balaayada aan u keenana ku sabraynin, samadii arlada anigaa samaystay ha iga tago meel kale ha qabto, rabbi kalena ha samaystay baa ilaahay yidhi. ilaa ayna ha ku mashquulin shahawaadka. arsaaqad hungurigu waxaad cunayso inuunan ku seejin daacadda ilaahay. laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah ay can daacati illah. qur-aanku waa dacwad dhammaystiran weeyaan, waa dacwad taama. ilaahay baa dacwadayna siinaya. ubadkaan u shaqeeyaa, ubadkaan u ordayaa, iyo xoolahaagaad xisaabinaysa daacadda ilahay inay ku seejin. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. الدنيا هل كان جنة النار تبى لقد يرسنيا؟ هل كان لقد يرسنيا؟ هل كان جنة لقد يرسنيا؟ نارتين هل كانوا لقد يرسنيا؟ أعماشي جنة الجوجلي هل كان لقد قادنيا؟ أعماشي نارت الجوجلي هل كانوا لقد قادنيا؟ فهيلو من طاعة إلهي. أفر عدو بقرآن كإلهي نوشة أفر تعدو ني والله والله تقلم نفتاد وعدو ويان إن النفس لأمارة بالسوء. الديد وعدو جن ويان فلا تغرنكم الحياة الدنيا. شيطان هو عدو جن ويان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هود وعدو جن ويان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هادعين نفت هذا شيطان كان هادعين الديد هادعين طاعة إلهي إنك سجن الديد إلهي كوجع إلهي أوصيا كوجع علينا أوصيا. نبينا عليه الصلاة والسلام أيام مالين كسحر حصير صلبوا كسحري لقى حديبا مركا فرحا كقبتي عمر بعد دولي مدول الميي وكوكا عين النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر بوكيد محاكا وهنايا وحول يا رسول الله وحايقو هنا يقول هذه رسولك إلهية أيا دقاحد فرحا كقبنيسا مركاس النبي كوير يا عمر ما دي قشي كسنتا يعنيقا ما يكلا كامشي كسنية وحايق عنتملا هذه رسولك إلهية ومخلوق أو خير بدنا إني دقاحد فرحا كقبتو كسر يا قيصر نسر الذهب أي كسر إحدان. جوابت دقيسو ولالكيك مسلم كو وحيري يا عمر أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا. يا عمر وما أدرى لك وهين إني الراحة الدنيا يكون إحدى كالسناء قاتان إنكم الراحة آخرة نسك قادم.